iyadoo ay dhawaanihii u dambeeyayba iska soo dabadhacayeen cambaaraynta suxufiyiinta gobolada dalka ee ku aadan xadhigga tacadiga handadaada iyo cagajuglaynta uu maamulka madaxweyne Faroole ku hayo telefishinada iyo saxafiyiinta gaar ahaan labada telefishin ee Somali Channel iyo Universal isla markaana uu xabsiga u taxaabay wariye Mahad Cabdi Cali oo ka tirsan telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel ayaa ay sidoo kale maanta shir jiraa'id ku qabteen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ururka suxufiyiinta gobolada bariga Somaliland ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Sancho xaruntoodu tahay magaalada Caynaba xubnahan ururka suxufiyiinta ayaa si isku mid ah ugu baaqay isla markaana ka codsaday maamulka madaxweyne Faroole inuu xorriyadiisa u soo celiyo wariye Mahad Cabdi Cali oo maalinta 25aad xidhan iyo xarumaha telefishinada caalamiga ee Somali Channel iyo Universal oo albaabada loo laabay isla markaana aan la garanayn dambi ay galeen ugu horeyn waxaa shirkan jiraa'id ka hadlay wariye Amiin Bashiir Nuur oo ka mid ah wariyaasha rugcadaaga ee deegaanka ahna gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolada bariga Somaliland ee Sancho wuxuuna halkaasi dareenkiisa kaga muujiyay isagoo tilmaamay inay aad uga xun yihiin falalkan fooshaxun ee maamulka Faroole ku cadaajinayo suxufiyiinta madaxa bannaan suxufiyiinta ee gobolka Saraar gaar ahaan ururka suxufiyiinta ee bariga Somaliland ee Sancho waxaan halkan bayaan cambaaraynaa una soo jeedinaynaa maamul goboleedka Puntland gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Faroole xadhigga iyo tacadiga uu ku hayo wariyaasha ka howlgala maamul goboleedka Puntland waxaan si gaar ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland aan uga codsanaynaa anagoo ah bahda suxufiyiinta ee gobolka Saraar in uu soo daayo wariye Mahad Cabdi Cali oo ka tirsan telefishinka caalamiga ee Somali Channel maadaama aanu nahay suxufiyiin meel kastoo adduunka ay ku nool yihiin waxaanu nahay dad isku xidhan oo hal connection wadaaga madaxweyne Dr. Faroole waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa in uu fasaxo tacadiga uu ku hayo saxaafadda siiba labada telefishin ee Universal TV iyo Somali Channel sidoo kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay wariyaal kala duwan oo uu ka mid ahaa wariye Jaamac Cabdi Boodcade iyo waliba xubno kale oo tiro badan annagoo ah bahda suxufiyiinta gobolka Saraar gaar ahaan ururka suxufiyiinta gobolada bariga Somaliland ee Sancho waxaanu halkan baaq ugu diraynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo xukuumaddiisa taasi oo ku aadan xadhigga loo geystay iyo weliba handadaada iyo cagajuglaynta ay xukuumadda iyo madaxweynaha Faroole kula kaco mar kasta warbaahinta ka howlgasha Puntland saxaafaddu waa walaalo meel kasta iyo goob kasta joogaan iyaga ayaa isu hiiliya telefishinada Somali Channel iyo Universal oo laga joojiyay inay ka howlgalaan guud ahaan dowlad goboleedka Puntland waxaanu ugu baaqaynaa awalba u dhici jirtay in la joojiyo telefishin oo shaqada laga joojiyo balse wariye la xiro oo la sii deetay muddo aad u badan ayuu wariye Mahad Cabdi Cali oo ka shaqeeya kana tirsan wariyaasha telefishinka caalamiga ee Somali Channel uu ku xidhan yahay magaalada Garowe waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne Faroole inay sii daayaan isla markaana xorriyadiisa soo celiyaan annagoo wariyaha Mahad Cabdi Cali la damqanayna isla markaana la qabna dhibaato kasta iyo wax kasta oo ku yimaada wadnaasantii bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo agaasimaha ururka suxufiyiinta gobolada bariga ee Sancho runtii waxaan halkan isugu nimaadaa bahda suxufiyiinta ka howlgasha gobolka Saraar kana tirsan ururka suxufiyiinta gobolada bariga ee Sancho inaanu cambaarayno isla markaasina aanu tilmaano dareenka aanu ka qabno xadhigga caburinta iyo cagajuglaynta lagu hayo telefishinada madaxa bannaan ee Somali Channel iyo Universal ay ku hayaan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland runtii waxaanu la qabnaa suxufiyiinta kala gedisan ee dacallada dunida hadashay ee cambaaraysay xadhiggaas iyo cagajuglaynta lagu hayo telefishin runtiina waxaanu aniguna baaq kaalmada u jeedinaynaa madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole bismillahir rahmaanir rahiim ana ku hadlaya afka suxufiyiinta gobolka Saraar gaar ahaan ururka suxufiyiinta gobolada bariga Somaliland ee Sancho waxaan halkan eedan cambaarin uga soo jeedinayaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland gaar ahaan madaxweynaha Cabdiraxmaan Faroole in uu ka daayo saxaafadda cagajuglaynta iyo xadhigga uu kula kaco mar kastaba waxaan kaloo ka codsanayaa in la soo daayo wariye Mahad oo ay ku xidhan caasimada Puntland ee Garowe waxaan leeyahay saxaafaddu waa kaliya ee markasta horumarisa dadka iyo dalka
sidoo kale isna waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay wariye cabdinaasir khaalid siciid oo ka mid ah wariyaasha miisaanka culus ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan cambaareen ku soo qoturaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo aanu leenahay ka daacan dabadaas ku haysid dhammaan wariyaasha waxaan madaxweynaha Faroole faraynaa inuu ka noqdo go'aankii uu qaatay uu dibadda uga tuuray dhammaan si kastaba ha ahaatee waxaa dhammaanba suxufiyiinta dunidu ay si isku mid ah u cambaareenayaan tacadiga iyo handidaada uu maamulka madaxweyne Faroole markasta ku hayo warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha dowlad goboleedka Puntland iyadoona ay warbaahintu ka qayb qaadato horumarinta nabadda iyo dhismaha hadba deegaamada ay ku sugan yihiin. Maxamed Aadan Dirir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Aynaba.